magacaygu waa Cabdullaahi Cusmaan Daahiye dhashay magaalada caasimadda ee Muqdisho kuna soo barbaaray waxbarashadiisa ilaa heerka jaamacadeed digriigooda jaamacadana ka qaatay isla gudaha magaalada Muqdisho Faculty of Engineering Department of Mechanical Engineering wallahi taas farxad ay tahay xaqiiqatan wax iga saacideen waxaan dhihi karaa anigu jaamacadkii kuma ekeen jaamacadkii wax kama baran xaqiiqatan jaamacaddan ku biirin ka hor waxaan ka shaqeyn jiray workshopyada geerishada u badnaada ka shaqeyn jiray qof waxa birtu ku dhex jiro technical inuu ka shaqeynaayo yani wax iga saacideen waxay noqon kartaa qof waxa ahaay as technical dadka farsamayaqaanada injineerada kale Allah siiyo dad badan hada saaxiibada iyo macallimiinta farsamada gacanta oo aan dhihi karo in magacii heerkan soo gaaro ayaga sabab waa bacdallah oo iga saacidaan dhihi karaa laana wixii marka academically oo aad soo barato takhassus aan u soo barato oo practical joogtana ah hesho macna sameeyay laana anagu dadkeena farsamayaqaanada waddanka joogo qofka asoo xirfad walba laakiin kuma dhiirin karo in wax soo saaro sababtoo looma soo tababarin wax soo saar markii la soo tababaray yani wax cilad bixin ama soo tababaray in oo shay meel ka hadlaysan inuu hormariyo ama cilad bixin laakiin inuu new design la imaado looma tababarin statistic oo waddankeena u degsan tahay ma ahayn laana arday walba sembir wuxuu maraa macalinkiisa ama injineerka si ku horeeyo wadada maro marka maadaama anigu nasiibka u helay in ayagana cilmi ka barto oo xirfadooda aan barto oo jaamacadda markaa joogtid inta badan wax laga sheekeynaa hal abuur iyo horumar iyo si wax cusub oo design garaleed ay tahay dad wax naga saaciday markaa dhihi karaa in aan wax soo saaro macna ay yeesho la horto wax walba markii la sameeyo xaqiiqatan waxa laga yaabaa dadku markii media meelaha ka arkaan wax yar oo socdo in qofka oo sawirto dasaan sameeyo waa isku keeni kartaa easy horto fududahay wax walba hadda go'aansato waa la sameyn karaa laakiin nijab iyo waxa ka horeeyo iyo rafaad badan ka horeeyo xaqiiqatan format ay u qaadatay in barnaamijka mid ka horeeyo jiray oo laba tamar ku shaqeynayo marna wuxuu ku shaqeynayaa tamar energy oo charger oo waxa ugu talagalay diinimo ku shaqeeyaa marna tamartaada ku shaqeynaa adaa sidii baskiilka camal u isticmaalayo barnaamijkaas markaa sameynay oo aad tijaabinay leelikadiya weynay oo leelikadu ku xirnaa inuu lagu tabar yaraatay leelikooyinkan waaweyn oo doomaha falvayaasha lagu xiranayo ma qaadanayo laana motor xoog leh rabtaa loo iyo diinimo yar ma wareejin karto that's why midkaan dambe u sameynaa motor weyn u saarnay laana motor weyn hadda kan dambe saaran waa motor kaliya duwaad laana inta u dhaxeeyay waxa waa xaqiiqatan at least 2 months wixii taala jasiir laga soo qaadan oo maalintii barowada aan geynay waxbaa nagu soo noqday waa imaanaynay workshopkeena xataa xagga inta badan ugu shaqeynayna u rurnay oo waa dhibaato fara badan way jirtaa laakiin dhibaato gaarsiisan in anaga qorshaheena istaago ma jirto laakiin caqabado oo waajib ah in la maro baa ka horeeyo qarash u baahan tahay xaqiiqatan oo wuxuu la sameynayo uu soo orod maahan waa qasaare wixii waxa dan from scratch ka soo bilaabay aad bilow ka soo bilaabay mid qaan qof ka tixraacid meel lagu sameeyay horumar tagin waxa laga yaabaa wax oo niida ka keento design gareysay inay yihiin maalin walba marka caqabado wixii asmis qarashka ugu tala gashay 3 jibaar qarashka baan ku galay xataa